ما شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، أطال الله عمرك وعزك في الدارين. sidaasi aad talada fiican u siisay ilaahay subxaana watacaala iyagana ha ka yeelo kuwii dhaqan geliya oo weliba walaaya. sheekh saa'ilkan kale waxa weeyaan waxaa hore loo yidhi sheekh abudalxow karis xun iyada ku waxla. su-aashan markii aan aad iyo aad u akrinayay aad baan ula yaabay. waxa weeyaan lamaano ayaa soo qortay balse hadda lamaano maahay way kala tegeen. sidii mataqaana ayay isku furayeen saddexdii dalqadoodba meesha kuma jiraan oo way dhammaatay. sheekh waxa ay wax badan bay fiirsheen diintiina way ogaadeen oo way og yihiin in maaragtay in gabadhu nin kale uu guursado mooyaane inaysan dalqadaha soo noqonaynin. marka sheekh saa'ilku weliba waa ninka ee waxa uu gabadha kaga shakisan yahay in ay doonayso in maxaan ku idhaahdaye inta nin kale ay guursato deetana hadhow halkaasi mataqaanaaye 3 dalqadood oo cusub meesha uga soo baxaan. waxau yidhi anu beri baan ka ahay shaqana kuma lihi balse inta ayna hawlahaasi iyadu gelin maxaad nagula talin lahayd oo maxaad tala ah wax tala ah ma jiraan wax mataqaanaaye ilaahay subxaana watacaala arrimaha noocan oo kale ah bal maxaadna oran lahayd buu leeyahay oo tala ah oo laba qof aad iyo aad isku raba waqtigan xaadirka ah wixii horeba yeelkeed bay leeyihiin. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد waxaad idinkula talin lahaa wuxuu alla idinkula teliyey waxaad idinkula talin lahaa wixii uu rasuulku idinkula teliyey sala allahu alay wasalama. waxaan idinkula talin lahaa wixii ay shareecadu horay u caddaysay oo u bayaamisay oo ah haweenayda iyo ninka isqaba haddii ay u kala dhammaato oo 3 dalqadood bay isku qabaane laba rajciye iyo tii u dambaysay الطلاق مرتان marka saddexaadna fa imsaaku bimacruuf aw tasriixun biihsaan. hadday arrintaa idin kala dhammaatay oo caddahay inay idin kala dhammaatay waxaa idinkula talinayaa kala lugeeya oo dhulka ilaahay waa ballaaran yahay tabaaraka wa tacaala. 3 dalqadood baa jaanis la idiin siiyey waad fayrsaydheen waadna ku ciyaarteen oo waad ka faa'iidaysan weydeen. sidaa daraaddeed sharciga taladiisu waa inaad kala tagtaan. وإن طل إلهي تبارك وتعالى وحوليه قف دمر هدي لفره فلا يحل أن تنكح زوجا غيره. يعني مرلبا أو مضنانو إلى أي ننك لكجورسته ننك لنا أي وليبا أفيرسو أي خيار كذا كجورسته وأتشدد أين ننك يهرا إلى بوس أبنايسو أين النية ذي أتشدد أهين خيار كي سنة أو كفره oo ayna ku furin waryaa i fur iyadoo doonaysa ninkii hore oo markaa weliba shahwadoodu isku dhacdo xataa yaduuqa cusaylatahu xataa yaduuqa cusaylataha wa taduuqa cusaylatahu oo weliba shahwadiisii iyo shahwadeedu isku dhacaan oo haddanana khayaarkiisa uu ku furo oon xoog looga furin haddanana ay ciddada ka baxdo. intaas baa horta ninkii hore un ay gabadhu ay ugu laaban kartaa. wixii intaa ka horeeya waxaad moodaa mas'ale aan gabadha u jeedinayo oo ah horta ninow adigu waa saa sheegtay iska lugeeyo gabdhahaagaa kale iyo adduunkaaga iskaga luge oo halkan ha u soo hunguri taagino ha isdhihin gabadhii bay xag u soo socoto waana kaa fahmay inaada adigu u soo soconinee gabadhu ay doonayso. gabadha waxaan leeyahay ilaahay waa inaad ka cabsato oo allah waa inaad ka dhowrsato ilaahay ciqaabkiisana ka baq xuduudda rabbulcizana ilaali. لعنة النبي محمد وعرب كيسا كل عربي ضدك فعل كان أشياء دونه كان موقريسا هذا سؤال كان موقريسا ضدك كل دعا نبي ضدك كل عربيها قدر مني لعن الله المحلل والمحلل له. نبي حبيب صلى الله عليه وسلم الله لعنه نحريس رب العزة لها كفوجيو نمنك وحو حلالين يكون وحلاشنيا محل جاي ولا محلل والمحلل له. يعني midka wax xalaalaynaaya maxalliga xalaal ma ahan maxalliga guursanaya qof dumar ku guursanaya si uu ninkeedii hore ay ugu noqoto muhallil balayada midka guurinaya wal muhallal lahu midka loo xalaalaynayo midka guursanaya waa muhallil ka loo xalaalayn doonana waa muhallal lahu waa midka loo xalaalayn doono. sidaa daraadeed labadaaba waa la lacnaday
nabiguna wuxuu ku magacaabay attaysul mustacaar orgi dadka reer baadiyaha yaqaano oo ritiga iyo dibiga iyo wanka iyo orgiga iyo waa la kala caariyeystaayo waa la kala amaahdaayo xooluhu kala wanaagsan oo kala suum fiican oo markuu u tago reer kale yuu leeyahay orgigiinan baa mataqaanaa wax badan dhale oo isiiya markaasa intii lasoo siiyabuu adhig ku darsanayaa marka waa nin adhiga lagu darsaday waa nin qofka dumarka a lagu darsaday waa attaysul mustacaar ayuu nabigu calayhi salaatu salaam uu yidhi marra wuu lacnaday gabadhay hortaa dembiga ha ku dhicine 3 dalqadood haddaad ninka ku haysan kari weyday adeeray niman badan baa buuxe adduunka inta candhuuftaada dib u laqdo ood soo weysaysato 2 ragcadood tukato ood bismillaahi dhahdo niman kaaga wanaagsan oo kaaga fiican baa laga yaabaa inaad heshee adduunka ilaahay qaraabo istikhaarada tuko dadka culummada iyo dadka arrinta yaqaanana la tasho ilaahayna talada u dhiiba tabaaraka wa tacaala marka taladayda markaan soo xooriyey waxaa weeye haddaaba dhahdeen way noo kala dhammaatay taladu waa taladii alle iyo rasuule kala yaaca nin walbana waxa weeyaan